durdurmeedii waa soo nacay durdurmeedii marabo qiyaamaha ku arkay fildaraa ku arkay jiif xumaa ku arkay durdurmeedii ani xastoob ebel faa'iido igu qabin xastoob mar danba habarteeda ka taa lacag. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة كسر دوادا channel كين أحمد official ما شاء الله سر دوادا إذن دي لا أصحابتي شرفت رواد أركتان maalmahan isku dhegdheg badan iyo qurqoteen badan iyo dhibaato badan baa socoto iyo xifaaltan fara badan xifaaltankaas oo ka dhex socoto magaalada Muqdisho waayo waxay tahay xifaaltankaas waxa weeye hadda niilama sheegayo waa sida hore aad u aragteen haddana aad arki doontaan aan jeclaaday in aan idinla wadaago maanta taasoo dagaal fara badan iyo dhibaato fara badan waad aragtaan sidoo aweys baafo oo ka dhawaajinayo durdur video waa nacay waan ka tagay nafaad baan ku arkay dhib baan ku arkay buuri marka waxaan isdhahabo maxay ahayd aweys baafo wuxuu banaqdaba lacag socoto maxaa yeelay waxayo 4 qofood oo aad u taqaanaan maxay ahayd 4 qof aad si aad u taqaaniin ومقالة مقدشة عانكه aad iyo aad u taqaaniin 4 qof oo Muqdisho caanka ah marka 4 qof baa waxaaba suuq u naqdaba aweys baafo wuxuu suuq ugu naqday qofkaana dafays qofkaana wadanaysa suuq ugu naqdo afartu balbalaarka waan idin tusi doonaa kilibiyadooda iyo Xasan Toob iyo Dayax Xaaj Degdeg iyo Nuur Weershi sida ay dhahayeen marka sida aan u arkay macnaa waxayna qatabo in wiilkii aweys baafo uu naqdarto aweys baafo aad iyo aad Xasan Toob wax badan buu u qabtay asigoo agtooy oo darbijiif oo wuxuu rabo uu cabaay buu soo wado dadka dhigayo libis ka bedelayo maanta soo saaray marka qofka soo saarto ma ahan in aad ku tumato ma sha Allah tabarakallah waxa loo baahan yahay qofka waa soo saarto sida uu soo saarto in ay product ay sameeyso wax soo saar ay sameeyso qofkana la tuso in qof wax qabsada tahay horumar uu gaaray la tuso laakiin 24 hour qofka markuu uu ku jiro hawa cadiban wuxuu dareemaa inuu hawadiisii hore u laabto marka aad iyo aad wallahi waa maada aan aad uga yaabay inta ku arkay fartuun balaarka ku arkay waxaan ku arkay Dayax Xaaj Degdeg Nuur Weershan ku arkay kii Xasan Toob marka wallahi xifaaltan zaid u fara badan meesha ka socdo wallahi waxaan bagara laahaba aweys baafo wuxuu naqday fuluus socda in badan marka asxaabteeda qaaliga ila socda kilibiyada waa idin tusi doonaa bal ila daawada idin dhihi lahay sida ay u xifaaltamayaan qof walbo cadkeeday dhacsanoosaa iyadoo hal qofna loo wada dagaaltamayo loo wada xifaaltamayo marka waxaan dareemi karaa in uu aweys baafo oo naqday de suuq wareego suuq qalaada maqli jir Soomaa suuq wareego naqday marka ila daawada aweys cali baafo isagoo channelkii caawo oo ku dhawahay caawo waxaan la fadhiyaa walaashay Fartuuna la fadhiyaa jarankeeda fadhiyaa macna waxa ka hadlaa aniga dhibka maanta ii geystay oo xastoob ii geystay macna xastoob aniga dhibkoo ii geystay caawar baa inaa ka hadlo ishiida dhaawaca ku yaalo way barashan tahay waatana dhaawacaas uu yaalo askaraal ugu dalbaday aniga maanta muxuu askar ugu dalbana horta maanta hadii labada qof ay wada shaqeynayso oo macna shaqadii ay wada keen waayeen ilaahay xamar wuxuu waasax oo dhigay labada qof iskeen waasi inay kor weexato macna aniga xastoob waxa dhaamiyo aniga shaqadaada marabo inkastoo aniga maanta shaqada sabab ay loo diiday sababta u diiday maxaa aweys sababta u diiday waxa ay macna meeshii ficilaa ka arkay dhaadhaca meesha soo gala lacagaha soo dira lacagtii anigana ma soo gaarto hadda aniga walaashii hadda markaa degmada aan isku aragno waxa ma dhahay YouTube qaawateen waa kilibkii ay wareysanayso in fartuun balaarka wuxuu tabanayaa waad aragteen dhankan oo daanka baa dhaawac ugu yaalo marka horta waa qalad qofka bini'aadanka marka ay kula shaqeynayso haday shaqadaada diido in aad qasabto ama jirdil iyo dhibaato aad u geysato waa laga fiican yahay 99 waayo wiilkaaseti ma sha Allah nolol xaalad xun uu ka soo baxay inkastoo xaaladii xumeed uu u laabtay laabashada uu laabtana danba ku kaliftay danta ku kaliftay maxaa keentay cadaadis la saaray marka dhibku sheeganayo waa aragto waa lay diloo yiri waa lay jirdiloo yiri goomankeyga waad aragtaa dhibaatada uu sheeganayo dhibka uu maray
marka qofka bini'aadamka lama baana waa kan fartu balbalaarka baa wareysanaysa maasha allah tabaarakallah marka waxay tahay in qof walaalkaa ah oo kula shaqeynaya inaad dhibaato u geysato ama aad jir disho ama aad dhib la mareegto aad iyo aad ay u xun tahay marka waxaan dhihi lahaa walaalkayga xasan toob ma fiicna macnaha qofka walaalka markuu kula shaqeynayo hadduu shaqadii diiday in aad qasabto ama aad jirdisho ama aad xumaan u geysato marka aniga waxaan is dhihi karaa isbaafo macnaha dhibaato guud baa haysato marka dadkiina waxay u adeegsanayaan hub lagu yeera camal ah bal arag qofba kale wuu isku gudbinayaa marka maasha allah tabaarakallah waa ka kilibka idila daawateen kilibka xiga baa idin tusayaa oo maxay ahayd xasan toob u adeegsanaya dadka youtuberada uu caynaayo marka qofkaas waxaa is dhihi kartiin idinkaada og marba qof buu iska caynaa marka xaaladiisa allahu aclam bal ila daawada kilibka xigana waan isla arki doonaa sida uu u hadlayo habeen xalay waxaa youtube-ka soo fadhiistay balbalaarka iyo warweersha waxay dhaheen tacsi ayaa u taalla xasan toob tacsi ayaa u taalla tacsi ayaa u taalla tacsida ii taalla ma ahayn aweys cali baafow noloshiisa in la soo celiyay ahayd tacsida ii taalla waxay ahayd nolosha aweys cali baafow in la soo celiyay waa ku faraxdeen maanta youtube ley aan hebel dhehaynin moobeeladeeda soo wacaya bajaajyay qaateen way wareegeen meel kasta oo aweys cali baafow ku sugan yahay ku wareegeen marka waad aragtaan kilibka xigay oo xasan toob uu dhahaayo dadka youtuberada ah oo macnaha uu aflagaadeynayo qofka kale oo caytamaayo aweys baafow marka waxaa is dhihi karnaa horta qofkaas iidaa mushkila iska haysato qof oo macnaha wixii la dhahaabay iska dhehaysato way dhib badan tahay marka ma fiicnada qofka walaalka inaad qof u adeegsato ama qof aflagaadeeyo macnaha aflagaadada aad iyo aad looga fiican yahay inaad aflagaadeysan waa mid aad u xun marka waxaa idin dhihi lahaa inta aad horumar gaarteen ha isku mashquulin oo ha isxasdin oo hal qofna ha adeegsanin taasaa idinka waanin lahay 99% ani kulligood waa walaalahayga tihiin marka waxaa waaye kilibkan waa daawateen hadalada ay ku hadlayaan waad aragteen macnaha dad baa la abaarayaa dad baa loo adeegsanayaa marka qofkaasiyta waxaad is dhihi kartaanbo waxa uu sheegaya iyo wax kaleba wax oo la xaqiiji kara ilama aha anaga waayo wax xaqiiqsanba ma aha marka waxaan dhihi lahay walaalkeen isbaato dadka ilaaha kaa dulqaado macnaha inaad macnaha qof walba ay adeegsato qofka dhibaato u keenaysaa macnaha qof walbana wax bay ku raadsanaysaa marka aad iyo aad waxma marka ila daawada kilibyada xiga insha allah haduu ilaahay ka raali noqdo kilibyada xiga ila daawada waxaa ku seexanaa 5 ruux nin koow ma fahanti صح hal qol 5 ruux lagu seexdaa xiligi quraacda la cunaa quraac lama cuno صح ma fahanti صح 7 saac 6 saac quraac ahaan lagu marka seel idin ka faala qaada idinkoo quraacna helin oo guriga hal qol isla seextin dadka dhan meesha halkaas qol ma la soo geeyaa ana ku nidaamiya kalabe fanaanka nigiska ka 3 ma seexdaasna diiwaan soobla ka 4 ya abdoonka hadda abdoon waxa la guriga loo kireeyay waxaas ma jiro ma jiro abdoon loo kireeyay af Soomaali waa صح عاب أنا أنت أو صوتي دردرة أو صوتي حسب أنا إنه إصافة حدا مربي صح حوق وواستي أقول أبي حوق نقاس ولالك يا كمر قاتي حوق ولي فيجي صح ولي laabteeda wallahi xaqiiqatan aad iyo aad u faaji'ooda aniga waad aragtaan kilibiyada kala xiga oo ah dayax cadi degdeg iyo nuurweershe wallahi waxaan isdhihi karaabo macnaha qofkaas oo qofba mar uu jiidanayo xaqiiqatan dadka jiidanaya inay ka dareemayeen 99% looma baahna horta wiilkan oo dhahayo maxay ahayto isbaato waa wiil macnaha xaalad xun ka soo baxay marka in qof walba qof uu u adeegsado horta waa laga sharaf badan yahay aad iyo aad aan looga qiimo badan yahay waa maada aan ka xumaaday looma baahna qofka walaalka inaa marba qof aad u adeegsato marba qof uu adeegsado marba qof uu jiito aad iyo aad looga xun yahay lama fiicna waduu maskaxdiisa ay celi weyso in ay dadka maskaxdooda fiyo waayeen ay qofka ay adeegsadaan aad looga xun yahay marka
aniga waxaan dhihi lahay dadka youtuberada waaweynka ah oo furtun balaarka ka mid tahay xasatood oo ka mid yahay dayax xaaji degdeg oo ka mid yahay nuurweersha afartooda waaye hadda afarta oo wiilkan qofba mar uu kilib oo ka duubanayo marka aad ay u xun tahay waa maada aan aad iyo aad u fiicnayn in uu qof asigaba xaaladiisa allahu aclan ay tahay ee qofka qof uu adeegsado waa fikrad aad u xun marka walaalihii qaaliga waxaan dhihi lahay in aad kasoo waantoogaan oo taas kasoo noqotaan oo qofba qof uunan jiidan micnaha qofkan een naqan in oo balbala oo naqdaba suuqa wareega marka maada waan idinka waaninayaa marka walaalihii qaaliga aan qof aan ataagayo ma jirto laakiin barnaamijka taagan markaas in mar walba aan la wadaago aan jeclahay oo mar walba aan soo gudbiyo micnaha waqtiga lagu jiro waa sax maxaa dhacay inaan asxaabtaada waqtiga lagu jiro aad la wadaagto waa fikrad aad iyo aad u wanaagsan una qiimo badan una qurux badan marka waxaan dhihi lahay dadka youtuberada waaweyn in ay ka waantoobaan waxyaabaha qaladka ah iska dhaafaan waxyaabaha qaladka ah fiirsadaan waxyaabaha quruxda badan ama qiimaha badan ama sharafta aad goynayso wax ay sharaftaada wax ay kaaga gaarayso aad iyo aad ay u xun tahay marka waxaan idinka waaninayaa qof waliba inuu sharaftiisa dhowrto qof waliba uu sharaftiisa ilaashado qof waliba uu shaatigiisa wajigan maxaa xaaj la-aanta loogu dhigay lagu saliigto marka in aad mar waliba waxyaabo xun aad ku dhaqanto waxyaabo xun aad samayso wax le xifaaltan uu socdo dagaal waa laga fiican yahay dagaal nabadaa ka fiican anagoo xaq alla colaad iyo dagaal laga haysatay haddana dhanka youtuberka duu dagaal uu ka taagan yahay bal ka waran maxaa dhib magaaladiina dhib ka taagan tahay youtubekii la rabo maskaxda in lagu degsado stress isku dhagdhag iyo isjiijiid uu ka soo waa maada aad iyo aad u xun isjiijiid waa laga fiican yahay inuu qofka kale uu ku dhegnaado waa laga fiican yahay bal kala fuqaa idin dhihi lahayn qof walibana jihadeeda hawaanto oo dad wada shaqaysta naqda qof kala ku mashquulsan mar waliba in la isku mashquulo ma fiican mar waliba in ay qof walba mashquul ay taagantahay aad bay u xun tahay marka waxaan idin dhihi lahaa asxaabta iska daaya mashquulka dadka youtuberada dadkan qadoono dadka ah totally iska daaya mashquulka yaan la isku mashquulin yaan la isxasdin yaan la ishagardaameynin qofka kale yoo jijiid ma fiicna iyo isgarab qabsi jijiid aad iyo aad looga fiican yahay asxaabteed isjijiid ha laga weynaado ha laga qaangaaro waqtiga ha idin wacnaado dad wax sharaf leh iyo qiimo leh soo gudbisanaya naqda caalamkaan igala fiirsanaya mar waliba dad isku dhagantiin oo isjiidaysiin oo la xifaaltamaayo qurux ma aha marka asxaabteeda qaaliga iga raali naqda aniga xumaan yaan lii fahmin micnaha maadada taagan baa uun ka hadlayaa waa uun in aad waxyaabaha xun aad ka waantoodaan marka maasha allah tabaaraka allah ka raali naqda haddaad xumaan u aragtiin haddaad ku caajistiin ka raali naqda haddaad janalkayga cusubtaa subscribe dheh qambaleelka oo ka dhigo asxaabtaada kale usii share garay commentina waa ii dhiirigelin commentiyadiina quruxda badan qiimaha badan aad baan u jeclahay ducada iyo ammaanta iyo hor u soco iyo dadaalkaaga hore usii wadaagaysa marka aad iyo aad idin jecla asxaabteeda loofi waa idin dhigi lahaa horumar waxaan idiin rajeynayaa asxaabta qaaliga xumaan ma jirta yaa kale maxanaaqaan waaye yaa la kala xanaaqinay taagantaa lama kala xanaaqaan waaye marka asxaabteeda la socosho wanaagsan xaalad walba uu lagu jiro inaan idiin soo gudbiyo diyaar baan u ahay gabasaarkayga aan kusoo xirtay السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفت بضلنا كلنا تدنبوا الحين صلي برنامج أشوف السلام الله عليكم